qolada la yiraahdo jawxa jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen qolada la yiraahdo ama onlef Ethiopia waxay u taqaanaa argagixiso muddo dheer waana la dagaalantay nimanka waxa way dhibaataysan niman xaq ku taagnaa oo muxuu la dhibaateeyay ayay haayeen oo dhulkoodii laga qaaday oo gumaystay ilaa imika haysto marka nimankaasi waxa weeye Ethiopia waxay u taqaanaa argagixiso waa taliskii Tigreega tagay ee dhacay ee hoogay ee jabay ayaa u yaqaanay argagixiso qoladana timi qoladan imika ayaa timi 2018 baan filayay inay yimaadeen waxay ka saareen iyaga iyo jabhadihii kale ee oromada iyo iyaga iyo kuwa kale xaaraa waxay ka saareen maxay laayaxat al-irhab liiska argagixisada ka saareen magacyadii ay u yaqaaniin kooxaha argagixisada ka saareen maamulada Soomaalida hadaba sheekadan u socda ma aha Ethiopia waa maamulada Soomaalidu bariga Ethiopia qolada waa aqoonsatay argagixiso maamulada Soomaalida argagixiso waa aqoonsaday markii laga saaray liiskii argagixisada waxa way soo dhaweeyeen ka horna maamuladaasi way u soo qabqaban jireen Ethiopia oo dhulkan Soomaaliyeed nimanka muxuu waxa weeye xaq u dirirka ah jabhadii la dagaalamay muxuu Ethiopia markay muxuu walaaladooda muslimiinta ee Soomaaliyeed markay gabaad ka dhigtaan ay u soo cararaan kooda dhaawaca keenaan inta la soo qabto ay Ethiopia laga gadaa Ethiopia loogu dhawaadaa maxaa dhacay hadaba wixii ka dambeeyay markii Ethiopia ka saartay liiska argagixisada Soomaalidii ama maamuladii Soomaalida way ka saareen waxaaba la arkay nimankii onlef oo lagu soo dhaweynayo magaalooyinkii laga qabqaban jiray dadkan qiimo ma laha marka dadka sidaa sameeyay wax qiimo iyo mabaadi ma laha wixii lagu yiraahdo argagixiso waa qoonsanaada ayay waa qoonsanaada wixii lagu yiraahdo ka saarna way ka